marka laga soo tago diiwaangelinta iyo in aad dakhliga iyo kharashaadka shirkadda aad diiwaan geliso, muxaasibka ama xisaabiyaha ama accountantiga waxyaalaha laga rabo waxa weeyaan waa inuu iswaafajiyaa waxa isaga u diiwaan gashan ee QuickBooks uu ku diiwaan galiyay iyo waxa ku diiwaan gashan xisaabaadkiisa bangiga. bank statementiga marka aad soo saarto tusaale ahaan oo kale EFC-da marka aad soo saarto iyo waxa adiga ku diiwaan gashan waa in aad iswaafajisaa. waxa lagu tilmaamaa bank reconciliation, waana waxyaalaha ugu adag ee ardayda marka xisaabaadkaasi la qaadanayo waxa lagu qaataa intermediate accounting-ka. waa waxyaalaha ugu adag ee ardayda hadda ay kala kulmaan adayga. idan shaqada ugu adag waxa weeyaan waa bank reconciliation-ka, laakiin goorma ayay fududaanaysaa haddii diiwaangelintaada buugaagtaada xisaabaadka ay saxsan tahay oo wax walbaba ay ku diiwaan gashan yihiin. iswaafajinta iyo isbarbardhigitaanku way ku fududaanaysaa. maanta casharka wuxuu ku saabsanaan doonaa qaabkee ayaan isku waafajiyaa, reconcile u sameeyaa buugaagtayda waxa ku qoran iyo waxa bangiga ku qoran. waa very easy haddii aad adigu aad diiwaangelinta si sax ah wax u diiwaangelinaysay. haddii aad waxba diiwaan gelin jirinna oo ama diiwaangelintaadii ay wax si ka yihiin, madax wareer ayaa kugu dhacayo. qaabka aad ugu sameyn lahayd QuickBooks ayaan qaadanaynaa. sifaan u qaadana marka aan iska xirna qaybtan waxaan imaanaynaa, hadda waxaan tagayaa qaybtan ayaan tagayaa, kadibna waxaan dooranayaa reconcile ayaan leeyahay. reconcile markaan dhaho waa inaad doortaa bangiga aan rabo in aan iswaafajiyo diiwaankayga iyo diiwaanka bangiga. EFC-da ayaan dooranayaa maadaama beginning balance-ga 0 weeye, maadaama hadda shaqada wada bilownay waa 0 oo sanadkan aan shirkadu Xareed Consultancy ay cusub tahay. laakiin adiga haddii shirkadaadu shaqeynaysay waa inaad beginning balance-ga uu ku saxsan yahay, kuna waafaqsan yahay xisaabaadkaaga EFC-da ama bangiga. ending balance-ga ayaa la rabaa inaad geliso. tusaale ahaan dib ayaad ugu laabanaysaa reportkii, markaas waxaad fiirinaysaa balance-ga ugu dambeeyay. balance-ga marka waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale 35,144 ayaan ku arkay markii aan dib u fiiriyay reportyadii. hagaag date-kan fiiriyo waa date-kee 30kii bishii 6 ayaan fiiriyay. dabcan waa in aad bangiga kala soo baxdaa. markaad intaas samayso waxaad leedahay e-bilow start reconciling, e-bilow iswaafaji. kadib waxaa kuu soo baxayso shaashadan ayaa ku soo baxayso. qaybtan difference-ga waa farqiga u dhaxeeyo bangigaaga, rasiidka bangigaaga iyo waxa adiga kugu diiwaan gashan QuickBooks. 90 ayaa farqi u dhaxayso. 90 ayaa farqi u dhaxayso sababtoo ah inta waxa ku diiwaan gashan 35,000 halka inta 234 intana maxaa diiwaan gashan 35,144 weeye. balance-gayga ayaa dhahday. haddii aad hoos u socoto farqiga muxuu u yaraaday hadda? wuxuu u yaraanayaa maadaama annaga aan reportka ku soo download garaynay. haddaad cashiradii hore ila socotay, maadaama reportka ku soo download garaynay farqiga u yaraanaya li'anno waxa weeyaan reportka intaan soo qaaday ayaan anigu ku soo shubay QuickBooks. somehow marka way iswaafaqayaan. okay, markaad hoos u socoto farqigaasi waa inaan aragnaa. markaad hoos socoto waxaad arkaysaa farqigaasi inuu ka dhashay 2 transaction oo ah qaybtan 40 iyo jeegan oo 50 ah. macnaheedu waxa laga yaabaa dadkan aan jeega u qornay in aynan wali kala bixin. marka sidaa darteed anaga meeshayna ka diiwaan gashan tahay bangigii aan wali laga diiwaan gelinin. marka waxaan leeyahay okay, jeegana ii diiwaan geli, kan ka hooseeyana ii diiwaan geli. baashana ii dhibayso. hagaag. okay, qaybtaasna waan diiwaan gashanay. marka waxa reconcile-ka maxaa ku soo baxayo eber. markuu eber ku soo baxo waxay ka dhigan tahay in aad waxa weeyaan ay diiwaankaaga xisaabaha iyo diiwaanka xisaabaadka QuickBooks ama any software isticmaalayso iyo diiwaanka bangigaaga inay iswaafaqeen oo wax farqi oo u dhaxeeya uunan jirin. dabcan reality-gu waxa weeyaan farqiyo badan baa ku soo baxayo. waxaana la rabaa markaasi inaad isbarbar dhigto reportkii bangigeed kala soo baxday iyo waxa adiga ku diiwaan gashan. any difference waa inaad jawaab u heshaa. haddaad jawaab u helin waxba khaldan. waa waxa ugu daranay madaxa xanuuniyo dadka xisaabaha. kadib maxaad samaynaysaa? waxaad leedahay finish.
finish markaad dhahdo waxaa kuu soo baxayo in aad reconciliationkii aad dhamaysay. haddii aad rabto dadka qaarkood maxay sameeyaan reportkan waxa weeyaan inta ay soo saaraan ayay print gareeyaan sifa reportka soo saarta qaybtaas ku dhufanaysa kadibna reportkan waxaa kuu soo baxayo beginning balance-gii 0 inuu ahaa checks payment inay 800 ahayd deposit ka 36 marka la kala jarana statement ending balance-ga inuu yahay 35 inta checkagii oo dhan ayaa kuu soo baxayo ee ka baxay kharashaad ahaan hagaag kadibna inta waxa kuu soo baxay depositkii oo dhan ayaa kuu soo baxayo 36,000 haddii any uu jiro transaction oo aadan ku darin waxa weeyaan uncleared meeshan ayay kaaga soo baxayaan. haddaba markii aad rabto inaad reconcile ku samayso bangigaaga iyo diiwaankaaga qaabka ayaa loo sameeyaa adigoo isticmaalayo QuickBook.